tani waa Hobar waxa ay ku dhacday boombala oo xayeysiinaha u yaalla meherada ay ka shaqaynaysa. Waxa soo booday Liisa taasoo ku canaanatay sababta ay ugu dhacday boombalahan oo ah in dharkani qiimihiisu uu yahay lacag $10,000 in ka badan. Waxa ay tidhi waxaan galay waa shil ee maaha waxaan kas u sameeyey. Iyagoo wada hadlaya ayaa waxa soo gashay milkiilaha oo lagu magacaabo Sandrella taasoo ku tidhi haddii aad mardaba ku dhacdo waxaad ka bixi doontaa shaqada. Dhanka kale Hobar meherada keliya lagama nacbee xaafadan dhib weyn ayaa ka haysta oo waatan ooynaysa. Waxa uu yimid odageedii waxa uuna ku yiri maxaad la ooynaysaa oo halkaan la fadhidaa aawa shaqadaadii maxaad maanta ugu soo tagtay. Waxa ay tidhi maanta waxaan nahay fasax saas ayaan ku joogaa. iyaduna gaajo xun ayaa haysa oo way iska ooynaysaa. waxa uu maqlay codkii ilmaha waxa uu ku yiri waa maxay ilmahaaga waxay u ooynayaan. intay soo istaagtay ay ku tiri ilmahayga ma ahee waa ilmaheena. maya baa lagu yiri ilmaha adiga ayaa dhalay ee la soco. waxay u luxday madaxa oo micnaheedu tahay waan gartay. Hobar iyadoo gaarigeeda saarnaa ayaa markale loo soo diray oo la xiriir shaqadaadii ku soo noqo. shaqadii ayay timid waxa ayna la kulantay Liisa oo aad u neceb Hobar. Hobarna waa gabar qalbi wanaagsan leh waa ay salaantay. waxa ay tiri waxaad ku hadlaysaa hadal fiican maante. inta ay wada hadlayaan ayaa dhinacooda waxa ka hadlay kastamar kaasoo doonayay inuu gato alaab taasoo dooqeeda ay ka soo saari weyday. gabadhii kale waa soo booday oo waxa ay tidhi anigu dadka ma caawiyo ee haddii aad rabtid in lagu caawiyo la hadal Hobar iyadaa ku caawinaysee. waatana Hobar qalbi wanaagsan waxay u timid gabadhii kastamarka ahayd ee u baahneen dharka gadato si fiican ay u soo dhaweysay. waxayna tusaysaa dharka ugu quruxda badan ee iyadu ay ka hesho ee isleedahay waa la iibsan karaa. waatan kastamarkii way u dhammaysay alaabtii waxaa loo keenay dharkii la qaadan lahaa waxaana loogu mahadceliyey sida quruxda badan ee u caawisay. halkan ay ka soo booday Liisa oo waxa ay tidhi lacagta ma kaa qabtaa anigu. markaasaa lagu yidhi maya adigu ma garanaysid sida kastamarka loo caawiyo umana baahnin inaad adu wax ii qabato ee Hobar ayaa shaqeeyay haysa. gabadhii Hobar waxay ku abaalmarisay lacag taasoo lagu yiri inta aad caawisay darteed waxaan abaalmarin ku siinayaa lacagtan. kadibna kastamarkii ayaa iska tagay. waxa soo ag istaagay Liisa taasoo ku tiri maanta waa nasiibkaagii ugu horreeyey. iyaduna ma ay jawaabine inta ay farxday ayay isaga dhaqaaqday meesha. waa kuwan Liisa iyo Hobar oo laiskugu yeeray taasoo loo sheegayo shaqada ka jirta meherada iyo sida loo kala abaalmutay. milkiilaha meherada ayaa waxa ay tidhi Hobar waa gabar aad u shaqo badan kastamar badanna way soo xaraysay lacag fiicanna way ay shaqaysay. waxa ayna leedahay abaalmarin shahaado taasoo ay ku guulaysatay shaqaalaha ugu wanaagsan meherada. gabadhii kale ayaa soo booday oo waxa ay tidhi mid igu kaftamaysaa. waxa lagu yiri may kulama kaftamayo ee adigu shaqada ayaad of ka tahay maadaama soo dhoweyntaadii la dhaqanka dadka aadan aqoonin. Hobar waa ay faraxday weliba farxad aad u ballaaran wayna u mahadcelisay milkiilaha leh ee guddoonsiiyey shahaadada qiimaha badan leh. waatana Hobar waa gabar aad iyo aad u qalbi wanaagsan jecelna inay wax wanaajiso. taasi waxay ka dhigan tahay marka aad shaqaalo tahay ama mar weliba oo aad meel joogtid waxa wanaagsan dadka inaad ula dhaqato si qurux badan oo sharaf leh. haddii kale ahayn waxaad la kulmi doontaa bahdilaad fool xun oo aan adigu ku wanaagsanayn.